الدنيا يا أمي وتحت أقدامك مناي كل نبضة تحكي يما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan kula wadaagayaa qiso cajiib ah insha Allah. waxaan jeclaan lahaa oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala aan weydiinayaa inay noqoto mid lagu cibra qaato. waxay qisadan u dhacday sida tan. waxaa jirtay hooyo Masaari ah ku nool dalka Masar, iyadii ubadkeedu ay wada joogaan Qaahira, haysata hooyo da' ah oo aad iyo aad u cimri weyn. waxaa maalin maalmaha ka mid ah dabaqii iyo dhismaha ay ku noolaayeen ka qarxay dab. wuxuu dabkii geystay khasaare aad iyo aad u badan. wuxuu soo gaadhay xaggeedii. wuxuu dabkii socdaba waxaa hooyadii ay ogaatay inuu dabkii gurigeeda uu soo galay. waxa ay haysato waa jaanis aad iyo aad u yar. waxaa dabkii ka baxsaday ubadkii ay dhashay. waxaa isugu soo hadhay qolkii 3 qof oo keliya: hooyadii iyo cunugii yaraayee bilaha u jiray ay naaska nuujinaysay iyo hooyadeedoo da' ah. hooyadii way shoogtay. waxay kala garan weyday wax allaala wax ay samata bixiso ay badbaadiso. ma nafteeda la baxsataa, ma cunugeeda la baxsataa, ma hooyadeed bay qaadaayo cunugeeda meesha ku dhinta. subxaanallah subxaanallah subxaanallah. hadday nafteeda la baxsato waxaa meeshii ku gubanaya hooyadeed iyo cunugeera ay dhashay. hadday cunugii qaadatana waxaa meeshii ku gubanaya hooyadeed oo cuquuba iyo inkaar ba kaga dhacayso. hadday hooyadeed qaadatana waxaa gubanaya wiilkeedii yaraa ee sabiga ahaa. dabkii guriguu soo galay. xaaladii way ka dartay, laakiin iyadu waxay garan weyday go'aan ay qaadato. wuxuu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu qalbiga ugu sugay in ay hooyadeed dabkii ka samata bixiso. markay hooyadeed soo qaadatay oo ay aqalkii sidaas uga soo baxday, ayaa aqalkii oo dhan hal mar isla qarxay isla gubtay. hal mar baa haamihii gaaska oo dhan baa ku wada qarxay. xasbunallahu wa ni'mal wakiil. hooyadeedoo arkaysa ayaa nawaaxigii cunugeedii uu jiifay oo dhan dabka isla wada qarxeen. waxay u soo baxday bannaanka. dadkii oo dhammaantood way wada faraxsan yihiin. nin kasta wuxuu leeyahay ubadkayga waan ka soo badbaadiyey, ilmahayga way iga soo baxeen, naftayda waa ka soo baxday, alxamdulilah. waa la wada qoslayaa. waxaa yimid dabdamiskii. waxay bilaabeen inay dabkii damiyaan. markay dhammaan dabkii dabaqoo dhan wada damiyeen ayaa hooyadii soo gashay. waxay tiri ubadkan dhalay baa iga maqan. waxaan rabaa inaan helo oo keliya lafihiisii si aan u aasto u asturto. waa la soo galay dabaqii. wax la soo socdaba waxaa la yimi hoygii ay ku nooleed hooyadan iyo ubadkeedii iyo hooyadeedii da'da ahaa. wallaahi tuma wallaahi markii la soo galay waxay dadkii meesha joogay ay ku dhaarteen oo ay yiraahdeen waxaan ugu tagnay sabigii oo aamusan, isagii oo aamusan oo korkiisa aysan waxba soo gaadhin. dhammaan joodari uu ku jiifay waa gubtay, sariirtiina waa gubatay, isagiina meeshii buu jiifaa. wax Ilaahay abuurtay oo soo gaadhayna ma lahan. subxaanallah. haddaba waa la yaabe, maxaa sabab u noqday inuu ubadkeedu badbaado iyadoo dhammaan wixii guriga ku jirayba ay baabeen oo gubteen? waxaad ogaataa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala haddii aad adeecdid inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wax kastoo amuurahaga uu kuu sahlayo. waxay u baari fashay hooyadeed, wuxuuna Allah subxaanahu wa ta'ala u soo samatay bixiyay cunugeedii. balse haddii cunugeedii soo qaadan lahayd wuxuu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka raacsan lahaa cuquubo. انت صبحي انت ليلي انت ارضي مع سماي انت عطري انت حبي انت انفاسك شلي.